ها waxaynu isweydiin horta werinimadu weriyanimada mayayna soo doonatay mise inagaa doonanay maxamed anigu waan doontay waanan doonayay idaacadda inaan tago ood weriye noqoto oon weriye noqdo halkaa ka hadlo iyadoo weliba fikrad kalena ay ka dambeyso shaqaale dowladda haddaad noqoto waddanku waa waddan ballaaran buu ahayo tuula haddii xanaanada xoolaha ama aad ka shaqeyso tuulo dee meesha doontaa waa lagu tuuri karaa meelaan tuulaba lahayn oo ama muqdisho joogayso magaalo doonaysa magaalo weynayso magaalo haddii muqdisho aad ka tagto hargeysa dow aanad dhaafay taasi waa mid laakiin meesha aan doonaya soo doontay waxaan garanayaa muddo yaraantaydii reeriyooga laygu cabsin jiray ka baqan jiray oo waxa la yidhahdo ninkii reeriyooga sanduuq weyn oo wax ka hadlayaan oo ma arkay dabeedna ninka ku jira ninka reeriyooga la yidhahdo ayuunbaa ninkan halkaa ka hadlaya inuu dadka la mid ahay inuunbaa iga dhaadhacday markaan waxay dhaar hore maxamuud hadda ninkii reeriyooga lagu yeedhi doonaa ama ninkii reeriyooga halka jooga maalintii aynu tagnay lanaga qaaday voiceska kadib markii lanaga qaaday programkii ugu horreeyay lanagu soo dhaweynaya allah arxama cabdi xaashi goobtoon inoo qabtay waan xasuustay war ninkii aad ka baqaysay loo ninkii reeriyooga halka jooga sawdiga adiga noqday ba yoonis adiga ka waran weriyanimada maadaa doontay mise iyadaa kusoo doonatay maya runtii horta iyada ay soo doonatay waxaan anugu dalbaday ma ahayn anugu waxaan dalbaday inaan film actor noqdo dadka filimada jila ayaan qortay beriga oo waxaan u malayn waxaan jeclaan jiray filmadan cowboyga la yidhaaho oo markii ugu horreysay film cowboy aan daawado ay ahayd halkan arabsiyo dooxan arabsiyo laakiin aanu ka yaacanay markaan fardihii iyo wixii filmkuna marka farduhu soo ordayay way soo dhawaanayaan oo way weynaanayaan waa ka ku jeeray baad odhanaysaa waan ka orodnay inkastoo runtii markii camuudan ku jirnay inteen dee isku wada faac baynu ahayn maca xagga shaqada oo meel baa laynu wada qoray ani iyo allah u naxariistay axmed xasan cawke iyo nin maxamuud sheekh axmed taani loolan jiro isna kanada tegay doctor maxamuud awdaahir afqarsho imika malaa maraykan joogo dhakhtar noqday iyo buurtii yarada camuud intaanu fuulno ayaanu matili jirnay raggii beriga hadli jiray xuseen bulaale iyo raggii ka hadli jiray meesha cusmaan xasan iyo ninkii kale isna dalabaadka sheegi jiray cismaan sugulle iyo ayaanu matili jirnay laakiin beriga madaxa kumaan hayn idaacad baad ka shaqayn doontaa sidaa dalmar idaacaddii igu horreysay halkan isla arabsiyo sanduuq weyn baa hadlayey odaya abbo markaa la naxartay maqaaxil ahaan jiray baa keensaday sanduuqii baan ku wareegay markii dambe aan igo ayay ciddan meesha ka dhex hadlaysaa mid ii adeego meesha fadhiyey ayaa yidhi waa inankii nii cumar waa mid iga yaraa intaan dhagaxaan doontay baan baalkiisii dooni ka soo saara meesha marka waa sidaasaan ku bilaabay markii dambe waxaa laygu daro liiskii reediyo muqdisho beriga aan muqdisho tagnay anigu haddaan eego welihii ugu horreeyey ee aan anigu dhegaysto waan codkiisa jeclaysto wuxuu ahaa mustafa xaaji nuur 1964 baan dagaalkii markii uu socday Itoobiya iyo Soomaaliya u dhaxaysay marka ereygu uu maalintaa lahaa oo ahaa cagahay ka deynay xaynkaas ayaan dhageystay marka codka waan jeclaa codadka mar baa jirtay markii uu cadaad ku jiray inagoo dee intermediate waa dhamaysan aan warqad qoray warqadaasi nin baan u dhiibay boosta ku rid yani anoo shaqo ka doonaya laakiin meel ku dambeysay ma garanayo hase yeeshee markii dambe aynu meesha nimay maan soo qoran waatii la qoranayay marnaba idaacadda maan qoranin marka xiisaha hore wuu jiray marka dambe laakiin ma jirin laakiin waxaan idin weydiiyey maalan xusuus waxaad sheegtay ka hadashay Yoonis Anaanta idaacaddii ugu horreysay dhageystay ama codkii ugu horreysay dhageystay ana xuseen annagoo yar oo meel ku ciyaarayna ayaa mid kurayo meesha ku ciyaaro naga weyn ayaa yidhi heestii baa soo gashay marka heestii baa soo gashay heestuna waxay ahayd heestii hore ugu horreeyay markaa 60 iyo meelaha la qaadayay hidiyo ayaa sidaas ma radio qura meesha yaalayo
aan saa waagaan dhawr waxa meesha ka hadlaya waxay taasi xasuusinaysaa Shamsa Buko Guduudo mara waraysi ka qaaday ayaa waxaan weydiiyay sidee baad ku gashay inaantay idaacadda dabeetana waxay tahay anoo u shaqaynaya qoys ayaa qoladii Hargeysa walaal Hargeysa loo oran jiray ayaa meesha wax ku tumaysay guriga gudihiisa codkii markaan maqlay baan dibadda ka qaaday bay tiri codkii ay heesayeen maalintii dambe ayaa gabadhii reerkii guriga lahaa waxay gabadhii shalayta ku shaqaynaysay heestaydii qaadaysay fadla soo kaxay waa la kaxeeyay bay tiri qolkaa gadhoo ka hees baa lagu yidhi waana sabay tiri soo kamanka iyo waxbaa la leegtay anu dee ma ogi bay tiri galabtii dambe la yidhi gabadh la yidhaahdo guduudo carwa heesaysa anuu kuwii ku soo cararay baan ahaa bay tiri soo maqad gala oo markaan codkaygii maqlay dib u cararay marka xitaa fanaaniintii horeysay markaad eegto iyaga ku dhow sidaad yoomis uga carartay ayaa uga carartay maalan dalman markaad eegto barnaamijyada kuugu qiimo badnaa ayaad ka dhegeysato maalan idaacadda ama oo aan adigu samayn laakiin cid kaleba samaysay runtii intii aynaan iman aad baan ugu xidhnaa radioga dee dadkuna ku wada xidhnaa yani madadaalo kaleba ma jirin marka barnaamijyada dabcan madadaalada ah baa dee da'daa lagu jeclaa laakiin marka laga warramayo arrimaha matalan caafimaadka ama waxyaabaha soo kordhay oo kororso aqoonta hadda barnaamij loo jiray ninkii samayn jiray inuu salaban daahir afqashaaban malaynaya allah arxamo oo marmar marka ay ku beeganto duruus saynis ahaayoo laynoogu dhigayay iskuulka oo aanad saani u fahmin oo marka xagga af soomaali sida looga sharxo aad fahmayso aad baan u xiisan jiray iyo dabcan dee barnaamijyadii radio play maadayska ama riwaayadda radioga ee huryo oo kale iskuul iska dhan 20 sano socotay oo oo dalmar oo kale oo markii aynu tagnay intii aynan dacaan noqono barnaamijyada yaryar aynu sameynayna wararkii iyo gelmaan magaceena la baran maalin iska wax qabso lagu shaqeynayay mandaradii dambe ee idaacadda ayaa ninku yiri ninkan waa idaacaddu jooga dalmar baa war dalmar ma ninkana war bal faraskii ka war yani barnaamijkii lagu xidhiidhiyay marka waxaan u maleynayaa qofkii ugu horreeyay ee war sheegaya ama wariye hadlaya oo magac iyo cod aan isu barto wuxuu allah yarxam Cabdullaahi Xaaji Cilmi oo ka warramayay radio muddo ka soo warrami jiray iyo sanadkii ku xigay oo uu ku soo biray raxmatullaahi alayhi sagan allahu naxariistay salabaan aw daahir afqarshe oo marka isaga dee aad moodaysa inaan garanayay waayo faamiligoodii reer afqarshe ayaa dee aanu isku degmo iyo ma garanaysa casababa leeyahay marka taasaan filaya inaan qofkii ugu horreeyey ee aan yani dhegaysto ama aan magaciisa iyo codkiisa isku xidho idaacad ka soo baxa inuu Cabdullaahi Xaaji yaan soo xafilay adigu aniga dalmar baa inaad naga horreysay dhegaysiga idaacadaha marka waa dhici kartaa inaan dhegaysiga idaacadaha idinka horreeyay waayo tuulo joog baan ahaan jiray macnaheedu maaha inaan idinka weynaa berigii ugu horreysayna radioyada maqalkooga xataa markaad dhegaysanaysa sidan waadix umay ahayn oo codku inuu cod qof yahay waad garan jirtay laakiin heesahaasaa ka mid ahaa ugu horreeyey qaraamida loo odhan jiray wixii igu horreeyey dadka igu horreeyeen maqalay BBC-dii horta inta badan Cusmaan Sugulle iyo Xuseen Maxamed Bullaale iyo raggaasi ayaan ka dhagaysan jiray Mustafa Xaaji Nuurna Allah u naxariistee codkiisa aad baan u jeclaa laakiin hortiibaan xataa dhagaysan jiray oo mijir qaadiyo 62kii ahaa iyo Xaaji Cabdi Ducaale Allah u naxariistay iyo ayaa ka mid ahaa dadkan 62kii dhagaysan jiray laakiin waxa ay u sii dheer warka sidii loo sheegi jiray Xaaji Cabdi Ducaale aan dhagaysan jiray runtii warkana sida odayaashu warka u kala guraan qaabkaas loo sheegi jiray weeyidii baan ku jirin laakiin sida kale qaabku isla qaabkii buu ahaa Xaaji Cabdi Ducaale wuxuu sheegi jiray wararka maxalliga ah ee
xoolo meel lagu dhibeeyey iyo halkaasaa xoolo intaa lagu dhibeeyey dugaag la sumeeye iyo oo halkaa sayla 12 waraabe ayaa lagu dilo oo lagu sumeeyey oo xoolaha nafta dadka u keenay sidaasaa moogtay wax loo sheegi jiray oo wararku kuwa lookalka u badnaa laakiin war baa igu sii dheer waxaan u malaynaya 61 62 ahay wuxuu yidhi garoonkan kubadda lookatoorka agtiisa lookatorka oo loo kala toortigo halkan gabadhaa birta goolka ee ku taala ayaa galab inan yari is yidhi ku leexayso intuu tou yidhi ayuu birtii ku booday show birtayba caga kuma taagni inakii baad la dhacday inakiioo waa wax malagii galae nafba laguma soo gaadhin weli wuu igu sii dheeryahay warkaas iyo qaabkuu sheegay kaa waan dhegaystay yani waa waxyaabaha moogtahay weli aan iga hadhin waxaa kaloo dhegaysan jiray barnaamijkii dalmar lo odhan jiray oo runtii dhulka lookalka deegaanada aan ku bartay iyadoo aanan tegin anigoo galbeedun iska degan oo aan tegin ayaan haddana safarkii ku jiray deegaanada ka baahan jiray waxaynu ka hadlaynay inta badan BBC-da laakiin innagu waxaanu ku soo tababaranay radio muqdisho oo aan ugu tagnay dad fara badan oo ka shaqeynaya oo maalan aada qiimeyntooda samayn karto oo maalan anigu markaan tusaalahaan soo qaato markay timaado sports ciyaaro la sheego iyo barnaamij music oo la sheego qofkii aan ugu jeclaa inuu sheego wuxuu ahaa weel xaaji cali caynabo soomaad garan oo aad moodo markaad dhegaysanayso inaad garoonkaba joogto idinka ka warramaya maalan qiimeynta caynkaasa runtii xusuusta nagu rabtay waxa weeye dib xagga nolosha iyo xagga taabagelnimada niman markaa dhallinyaro ah ayaynu ku nimi khibrado iyo waayo aragnimo laga yaabo haddaynu sii joogno reer muqdisho ama meelihii kale aynu u shaqo tagnayba aynu helay aynaan heleen ayaynu helay anigu meel yar oo dhow amba ka soo qaadaayo wixii igu horta waan garanayaa faalle ku saabsan geeridii brezhnev ayaan igu horreysay codkaygu inuu kaga baxo BBC marka brezhnev oo kale ama nin madaxa geeridiisa laga hadlayana waxay qaadan jirtay bal sida looga hadlayo waxaa laga odhanaya marba laga yaaba inay qaadato 2 maalmood waxaan xasuustaa markii xayla salaasa lagu kacay 14-kii ee la ridi doono markii la yidhi ciidamadii Eritrea fadhiya ayaa geedooday oo ku kacay boqorkii iyo dowladda Ethiopia 11-kii ayaa Allah yarxam Yaasiin Xaaji Ismaaciil oo fadhiya loo keenay wuxuu u gudbiyey sheega uu ahaa madaxa reer Muqdisho sheegu jaamac khalaf la u naxariistay oo ahaa madaxa idaacadaha u gudbiyey muuse gore Allah yarxam oo ahaa DG-gii u gudbiyey muuse intuu eegay haddana Ismaaciil Cali Abukar wasiirka u gudbiyey Ismaaciilna madaxweynihii uu la tagay adigu sidii ay ka soo wareegtay Cape of Good Hope 24 saacadood bay qaadatay in la sheego warkaas approvalkiisi markii xaggan aan tagay yani xoroobid shakhsi ah oo sidaa doontaad u sheegi karta madaxweynihii Soomaaliya marka magaciisa aynu sheegayno ood garanaysa yani dee in neef oo man la waraabin karo waqti la waraabin karaa magaciisa inta la sheegayo taytalada madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaalida isla markaana xogeyaha guud ee xisbiga hanti wadaagga gacan waa dee mayl baa la soconaya war la ii keenay warkii ugu horreysay ee aan ka sheego BBC-da Somali President Siyaad Barre madaxweynaha Soomaaliya Siyaad Barre intaas ku soo gabay intii dee la kaca ku fayad garanaysa marka yani inaad intaa ku koobto ana lagaga daba imanay yani emancipation ama yani xoroobid shakhsi ah ayaa meeshaas aad arkaysa inay ku jirto dabcan dee yani khibradaha kale iyo dadka matalan dee aynu la macaamilaynay iyo markii hore inteena Soomaalidu baa isarkaynay laakiin European Arab Haddaan whatever
iyo adiga oo ninkan meesha xukumaya ama ka Soomaaliga madaxda ha ahaato ama kuwa kale ha ahaatee waxa ay kula tahay odhanaya waliba marday si kulul odhanaya oo wax kaaga imanayaan aanay jirin marka yani runtii wax weyn baa hiyiga iyo sida aad adduunyada u arkayso ay matalan ku soo kordhisay oo ka bedeshay yoonso maxaad ku daraysaa intaa uu dalmar sheegay yani horta waa iska duruufuhu runtii isku wada mid bay ahaan laakiin markii BBC-da shaqada aan ka helay 83kii ee aan London tagay Ingiriiska waxyaabaha aan sii xasuusto waxa ka mid ah maalin baa waxaan tagay halkan Hyde Park oo Speakers Corner baa la yiraahdaa sabtidii Axadda cid la cidii doonta meesha timaada waxa uu yaala meel ay fuulaan iyo microphone iyo place badan oo jooga iyo wax alla wuxuu doono qofka ku hadlaa niman markaa mutacalimiin oo Hindiya oo jaamiciyiin oo meelaha ka kala socday kuwa Jamaican iyo iman jiray sabtidii Axadda way ka hadli jireen qoyska reer boqor iyo boqorada la maagi jiray la caay jiray nidaamka dawliga ee Ingiriiska sharciyadiisa iyo aad u duri jireen nidaamkan anti-goosadka ee capitalismka aad u duri jireen qaarkood oo shuuci bay ahaayeen markay qoyska reer boqor iyo boqorada iyo raaskeega iyo qasriga Buckingham Palace wax ka sheegayaan hareerahan eegi jiray bilayska meesha jooga ayaan eegi jiray soo goorma la idin qabanay meesha ka yaaca show bilayskan baa dadkan hadlayaan cili juuq oo oran oo aanay la dagaalamin wax u dhimin ay meesha u joogaan aniguna nin Afrika ka yimid meel dictatorship military haystaan waxaan aqliyad bay ku jirtay qofkii juuq yiraahday dhaliila nidaamkaba in la xidhayo oo aan geliri jiray wallahi sidii wax bilayskani ma qabanayaan marka waa aragnimada iga soo martay ahayd waxa kale oo aragnimada iga soo martay intii BBC-da aan shaqeyn jiray waqti waxaan ku soo haagnay Soomaaliya qasantay runtii oo wax xun mooje wax sanba aanay ka iman waa dagaalo waa abaaro waa marka roobdo oo duufaan iyo daadad waa colaad waa qax waxyaabahaas oo war fiican baan ku soo mari jirin oo yani anigana qof aan si gaar ah saameynaysa waayo meelaha aad wax uga dhacay 88 waxa kamid ah hoygeygii baa kamid ahaa magaalada Hargeysa kamid ahay hoygaagu wuu kaaga gadisan yahay meelaha kale waayo wali waxa jooga aabaha hooyada walaalaha qaxooga iyo dhibaatadooda iyo guriga ka burburaana aduu ku soo noqonaya haddana si gaar oo kale ii taabatay 1990kii oo aniga laftayda BBC-du ay tiri wuu dhintay war la sheegay lagu waayay aniga oo intoon ka imid London geeskan Afrika ee dagaal ay ka socdeen BBC-du la yaabis ma lahayn war khalada baa loo tabiyay wax iyadoo ay xumaan ka leedahay ma ahayn saxaafadana sidaa ay runtii dadka meelaha taga way ku dhintaan Afghanistan imisa ku dhintay Iraq imisa ku dhintay goobaha kale beeleedu ka taagantay imisa ku dhintay la yaabis ma leh marka waa fara badan tahay waa aragnimadan ka soo kor laakiin waxna waan ka soo korsanay fursad baan u helayna wax baranno dhinac kasta ha